inkastoo ninku uu la kulmo haween fara badan ama uu jeclaado wax ka badan hal ama uu guursado dhowr jeer laakiin waxaa jirta haweeney ninka marna uusan iloobayn xitaa haddii xiriirkooda u go'o mar walba waxa uu go'anayaa ama uu xusuusanayaa xusuusaheedii si qoto dheer mar walba waxa uu rajeeyaa haddii ay ku soo laabato mar kale inuusan weligiis ka agtegi doonin waatay gabadha aan ka sheekaynayno waa maxay astaamaheeda halkan waa janalka rafiiq almacruuf haweeneyda ninka uusan iloobi karin si walba haween kale u barto gabadha waxa garadka waa mid ka warqabto nolosha iyo wacyiga saxda ee saaxiibkeedu ku nool yahay la wadaagto kala qayb qaadato wax walba dareentana wax walba oo isaga ku soo kordho murug fikir iyo qorshe ah ma ahan mid wax walba sheeda kala socoto oo aanan waxba ku darsanin laakiin waxay og tahay macnaha iyo muhiimadda wada nolosha waxay dareensinaysaa in iyada asaga uu leeyahay qofka kaliya ee dunida ay ka fiirsanayso gabadha ama haweeneyda sidana marna lagama yaabo ninkii inuu iloobo inta noloshiisa ah haweeneydan waxay xusuus ugu reebi kartaa dhanka sariirta qaar haweenka ka mid ah waxaa lala xiriiriyaa in ragga ay ku soo jiitaan dhanka sariirta maxaa yeelay halkan ayay uga samayn kartaa xusuus niyadiisa aysan ka bixin ma iloobi doono fikirkiisana ay ku jiraysaa sababta uu iloobayo waxay tahay waxay u samaysay wax walba oo rabitaankiisa dhankan ah gabadha samarka badan marna ninka ma iloobayo taas oo kala qayb qaadato waxyaabaa isaga culaysku ku laakiin iyadu waxay og tahay wax walba oo dhiba haddii loo samray in laga gudbo xilliyada uu murugaysan yahay murugada ayay ka qaada waxayna u dulqaadataa dabeecadihiisa xun iyo haddii uu mararka qaarkood xanaaqsan yahay marna lagama yaabo gabadha ama haweeney samir badan inuu ninka iloobo si walbay u kala fogaadaan gabadha ama haweeneyda raalliyada ah raggu waxay jecel yihiin in haweeneyda ay u noqoto raalliyo iyo in ay ku filnaato uuna ku raaxaysto xilli walba uu u baahdo xitaa markay ugu yar tahay haddii uu shumis ka dalbado ay dareensiiso in nolosha isaga la'aantiisa macnaysan lahayn wayna adag tahay ninka gabar ama haweeney sidan ah inuu iloobo mar walbana waxaa ka hor muuqan doono baarinimadii iyo quruxdii ay lahayd gabadha ama haweeneyda caqliga badan waa midda taqaano sida lagula dhaqmo saaxiibkeeda ama ninkeeda waxay taqaanaa xilliyada uu faraxsan yahay xilliyada uu murugaysan yahay iyo xilliga hadalka uu leeyahay in laga hadlo iyo xilliga ay dhegaysanaysaba dhammaan waxay taqaanaa dabeecadaha iyo waxyaabaha gaarka uu leeyahay mar walba waxay ku taageertaa caqligeeda wanaagsan iyo astaamaha gaarka uu leeyahay waxayna u sheegtaa inuu yahay qofka ugu wanaagsan ee dunida gabadha ama haweeneyda sidana waxa uu arkaa ninka inay tahay guushiisa koowaad marna lagama yaabo inuu iloobo si walba waqtigu u dheeraado gabadha ama haweeneyda cafiska badan ninka waa uu jecel yahay gabadhan khasab iyo dhib ugama dhigto waxyaabaha uusan awoodin isagana waxa uu aaminsan yahay nolosha labadooda inuu yahay buug furan kaasoo loo baahan yahay in lagu qoro iscafinayo runta gabadha ama haweeneyda koolkoolinta badan waa midda ninkeeda u aragto inuu yahay muraayadda dhabta ay qalbigeedu leeyahay taasoo uga warqabayso si aad u wanaagsan keliya uma aragto inuu yahay ninkeeda waxay ka dhigtaa mararka qaarkooda inuu yahay wiilkeeda weyn waana midda keento in mar walba qalbigiisa aysan ka bixin waxay dareensiisaa inuu yahay nolosha dhabta ee dunidan ay ku leedahay gabadhan ama haweeneydan waxay qalbiga ninka ku reebtaa saameyn aad u weyn taasuusan weligiis iloobeyn ugu dambayntii dhammaan waxyaabahan ka soo sheekaynayno waa waxa haweenka ragga ay ku soo jiidan karaan taas oo qalbiyada ragga weligood aysan ka bixin waad noqon kartaa haweeneyda ama gabadha ragga marna aysan iloobeyn